qaybteeni koowaad waxaynu ku soo gabagabaynay dabacadiiyo isku dayayso in ay ugaarsato dhasha libaax badeedka marka ay waalidkooda ka maqan yihiin. mid yareed ayaa isku dayayso in ay nolosheeda kala baxsato dabacada, laakiin dabacadii ayaa u awood sheegatay dhashii libaax badeedka. dabacadii ayaa cunaha qabatay libaax badeedkii ilaa ay ka naf baxday. hardan dheer kadib dabacadii waxaa u suurta gashay in ay ruuxda ka saarto libaax badeedkii. bisha 12aad waa xilliga ay kuleelaha aadka u daran yihiin, taasi oo keentay ilihii biyaha ahaa in ay angagaan. ceelkii biyaha ahaa ayaa waxa uu noqday halka keliya ay biyaha ku hareen abaarta jirta awgeed. shimbiraha xitaa waa kuwo u soo arooro ceelkan. ciiryaamada ka timaado badweynta Atlantic ayaa waxa ay soo gaartay saxaraha kulul ee Namib. ciiryaamada ayaa marka ay qoraxda haleesho isku beddelo dhibco yaryar ah, kuwaasi oo nooleeya cawskii cagaarnaa, taasi oo ka dhigan in fardaha ay xoogaa yara joogi karaan dhulka baadka leh, aysan haraad darteed ceelka kugu laabanayn, kaasi oo 40 kiiloomitir u jira. ciiryaamadan uumiga wadato xitaa waxaa ka faa'iidaysto dhirta loo yaqaano penguin-ta, kuwaasi oo soo baxay marka ay cimiladii qabowday. la joogaa wakhtigii ay buushaska ay ukumaha ku dhalan lahaayeen ay dhistaan, ayaga oo adeegsanayo geedaha ka dhex baxo badda gunteeda. dabacooyinkii waa kuwo sii wato ugaarsigooda ay ugaarsanayaan dhasha libaax badeedka, laakiin hadda waxaa meesha kula tartamayo iyayga ku nool saxaraha Namib, kaasi oo asagana si la mid ah dabacooyinka u soo ugaarsi tago xeebta. dhasha libaax badeedka waa ugaar sahlan maadaama aysan lahayn tabar ay iskaga caabiyaan dabacade. marka ay ugaadhu badan tahay xaasidnimo awgeed, dhulweygu waa mid wax walba oo ka soo agbaxo dila, xitaa hadduu uusan cunayn, ilaa ugu dambayntii uu hal mid ka cuno. kasta oo ay dhurwaayada habeenkii wax ugaarsadaan, laakiin adkaanta cimiladan iyo yaraanta ugaadha ayaa waxay ku khasabtay xitaa in ay maalinkii wax ugaarsadaan. fardaha waxaa ka muuqdo dhibaatada uu dhurwaayga u geystay. hoggaanka qoyska faraska ah ayaa waxa uu leefleefayaa nabarka faraska ka soo gaaray dhurwaayga si uu dhaqso ku bogsato. kadib marka ay ceelkii ka soo arooreen, fardihii waxay bilaabeen si quus ay ka muuqato in ay daaq u raadsadaan. si la mid ah fardayaasha oo kale, waxay awoodaan in ay dib u cunaan saxaradooda, markaasoo ah xilligii la waayo wax kale oo la cuno. dhibaatada jirkooda ka muuqato ayaa kugu filan inaad garowsatid adkaanta nolosha ee saxarahan. mid ka mid ah fardihii ayaa baahi awgeed
geeriyooday. Isla markiiba waxa uu marti u noqday dhurwaayada, kuwaasi oo ku ducaysto bakhtiga. Faraska yar haddii uusan istaagi karin, waxay ka dhigan tahay sidoo kale in aanan caano la nuujin karin, sababtoo ah fardaha uma fadhiistaan si ay dhashooda u nuujiyaan. Quus ayaa soo food saartay hooyadii dhashay faraska yar, laakiin faraskii yaraa ayaa tabar dhigay. xilligii roobaadka ayaa bilowdeen. Arrintaasna waxay farxad gelisay shay walba oo ruux leh ee ku sugan saxaraha Namib. Fardihii ayaa bilaabeen in ay biyaha qabow isku xoqaan si ay kuleelkii u daadsaday ay jirkooda ugaga saaraan. Isla durbadiiba waxaa soo baxay cooskii cagaarnaa, halkaasi oo ay fardihii ku baraareen. Shimbirihii penguin-ta ahaa ayaa waxay bilaabeen in ay dhalaan dhashooda. Xilliga roobaadka waxaa bilowdo in ay nooleyaasha tarmaan, xitaa dabacadii ayaa bilaabeen in ay isboodaan. Dayrooyinkii ayaa waxay bilaabeen in ay dhulkooda dib ugu soo laabtaan, ay abaarta awgeed ugaga hayaameen. Nolosha saxaraha ah waxa ay taariikhda ku dartay cid walba oo aanan la qabsan sida ay tahanna aanan ula dhaqmin.